cabsada naga soo gaaro bilaamaha war arrinkan arrin yar ma ahan dawladda Soomaaliya arrinka hadii ay ka warqabto anaga soo gaarto gurigeyga saana waa aaba Soomaaliyeed way ku dhibaysaa dabcan inaa aragtid aaba Soomaaliyeed oo illimeynaya waliba waxa la sheegaa raggu ilintooda dhedheel kuma imaado hadaad aragtid nin rag oo illimeynaya marxaladda aad ay ugu culus tahay laakiin kaligii ma aha muuqaalkan kala eeg kana alaabtii jiifkii way ku jirtaa waa ka cagaf soo galiyaan shacabku way dilaan way baabiyaan ciidanka dadka oo dilaa waa ka waxas nin oo waxa waa tali ku xigeenka degmada Yaaqshiid waaye waa ka cagaf dhulka ku jirto muuqaalkan waxa rabaa aaba kasta oo Soomaaliyeed oo illimeynaya iyo hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo illimeynayso inaan garab ku siino oo aan u hadalno kaliya waxaan awoodnaa inaan codkooda gaarsiino cid kasta oo markaa wax ka qaban karto haddii marka muuqaalkan uu si nabad kugu soo gaaray waxaan ka codsanaa inaad la wadaagto saaxiibadaada kale iyana waa hooyo Soomaaliyeed oo calaacalaysa oo dhiban oo caawa goob ay seexato aan haysanin alaabteedii jiifkan sidaan loo jijibiyay muuqaalka hooyadan Soomaaliyeed wuxuu iga imaaday deegaanka Daarusalaam maalmo ka hor waxa loo magacaabay degmo magac ayaa loo bixiyay saldhig iyo gudoomiye ayaa loo magacaabay wixii ka dambeeyay waxa ka bilowday in sidaan la isku dhibaateeyo muuqaalka aabahan marka isagana wuxuu iga soo gaaray deegaanka ceelasha biyaha subaxnimadii hore ee saakay reer ceelashu ma ahan cabashadooda aabahan oo kaliya laakiin deegaanka oo dhan ayaa saameysay askar ayaa la isku kireysana dabcan markaan ku dhaho askar la soo kireystay waa la yaabantahay Soomaha askartu waxa loo kireysana qof walba askarta reerkiisa ah ayuu maalinta wuxuu siin doonaa qayb yar ama lacag yar oo nafta ugu hori karo ceelasha biyaha maanta waxa ka dhacay dagaal kaasi wuxuu u dhaxeeyay qoysaska Soomaaliyeed ee guryahooda maalintii shalay sida awoodda ah looga saaray la jijibiyay iyaguna dad tolla ay ahaayeen waxay soo wateen familiadooda gaar ahaan dhalinyarada ay ka soo jeedaan oo askarta ku jira iyo kuwa saaxiibadooda oo lacag la sii maanta xabadka ay u tunteen way difaaceen halkaana waxa ka dhacay dagaalkaasi dhibaato badan ayuu sabab u noqday hooyadan Soomaaliyeed iyana deegaanka ceelasha biyaha ma ahan waa xaafadda Daarusalaam qof dumara ayaa ku dul iibsaday guryahoodii oo dhan waliba iyagu ku cabaadayo inay haystaan cadeen walbo oo cadeynaysa in guriga iyagu ay leeyihiin waxaasi oo dhan marka goormay dhacayaan waxay dhacayaan toddobaadkan waliba maanta oo kaliya ay dhacayaan hadana misweydiinaysa waa maxay sababta markii madaxweynaha hadda talada haayo uu xilka qabtaba muranka iyo isdilka iyo maxkamadeenta arrimaha dhulka oo kale markii dooda noocan ay soo laalaabato dadku waxay sheegaan xilligii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo dadku inaana sidaan oo kale dhul lagu murmin la isku dagaalin qabriida xitaa in la isku dulgato aan la faagin laakiin hadda madaxweynaha Soomaaliya waxa laga yaabaa tiimka ka hooseeyo in shaqadan iyagu lug ay ku leeyihiin xitaa madaxweynaha uu bari ka yahay laakiin marka uu talada qabto Xasan Sheekh dhibaatada ugu badan ee arrimaha dhulka ayaa dalka ka dhaco waa la isku dilaa waa la isdhacaa heer maxkamada isla gaaraa qoysas danyara ayaa sidaan oo kale guryahooda in loo jijibiyo dabadeedna lagu dulqaataa taasi dadku way u adkeysan laayihiin waxay u baahan yihiin dad u hadlo waxay u baahan yihiin cadaalad waxay u baahan yihiin in meesha ay degan yihiin si nabad ay ugu noolaadaan iyagoo markaa waliba heli karo askar ku ilaaliso ku difaacdo dalkooda iyo deegaankoodaba muuqaalkan waxa rabaa aaba kasta oo Soomaaliyeed oo illimeynaya iyo hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo illimeynayso inaan garab ku siino oo aan u hadalno kaliya waxaan awoodnaa inaan codkooda gaarsiino cid kasta oo markaa wax ka qaban karto haddii marka muuqaalkan uu si nabad kugu soo gaaray waxaan ka codsanaa inaad la wadaagto saaxiibadaada kale ka cabsada naga soo gaaro bilaamaha war arrinkan arrin yar ma ahan dawladda Soomaaliya arrinka hadii ay ka warqabto anaga soo gaarto gurigeyga saana loo galay Soomaalnimo hadii jirto oo ehelnimo jirto ee dawladnimo jirto gurigeyga saana loo galay wallaahi caleeg xashi maxamuud hadii arrinkan warkay sida anaka waa baanay waa hoognay waa balaanay meelaha ma naqaan ilaahay amarkiis wallaahi halkeen meelaha geyn ma naqaan meesha u guurna xataa waa la sii qaxinaa la yiri
14 goof oo kale ayaa dhimanaa sii duminaa la yiri 6 goof ayaa hadda jabtay bilaa calayk Soomaaliyeed jirta naga soo gaara hadday dowladda Soomaaliya caadil tahay ay ummadeedu naxayso gurigayga saan ayaa loo dudumiyay maalan biriga ilmahayga caruurtayda geema haysto ilaahay ka cabsada ilaahay ku dhaarshay maanta waa kana xageeda wax yar oo lacag oo neesaan kala baxay maanta meeshaan cid la taaganahay bilaa calayk ilaahay ka cabsada naga soo gaara bilaa kana alaabtii jiifkii way ku jirtaa waa kaas cagaf soo galiyaan shacabku way dilaan way baabi'iyaan ciidanka dadka oo dilaa waa kaas waxas nin oo waxa waa tali ku xigeenka degmada Yaaqshiid waaye waa kaas cagaf dhulka ku jirto meeshaasna waxa waaye alaabtii oo guriga aan wali laga bixinin saasay u burburiyeen sar waa ku salaami dhulka naag waaye ciidan badan ay keentay inay dhacday rabtaa dhagaxiina aad ku soo shubtay hore in laga dhisay rabtaa dhulka saarabtina naga yeelatay rabtaa dawladda wax cadaalad ma jirto gudoomiyaha imaan dadka dhama imaadeen waana la ogaa ka cabsada naga soo gaara bilaa war arrin yar ma ahan dowladda Soomaaliya arrinka hadii ay ka warqabto anaga soo gaarto gurigayga saana loo galay Soomaalnimo hadii jirto oo ehelnimo jirto ee dowladnimo jirto gurigayga saana loo galay والله عليك حشي محمود وأنت أركان وركه سيد أنا كواباني وهوجني وبلاباني ملا يا سن منقان إلهي أمركيس والله يا كين ملا كين منقان ما شاء وقورنا حتى ولا سيق حنا ليري أفري توقف وكلايا دي من رسيد من على ليري لحقوا في هذا الجبت بالله عليك Soomaali ما دجرتنا سو gaara haday dowladda Soomaali caadil tahay ay ummadeedu naxayso gurigayga saan ayaa loo dudumiyay maalan biriga ilmahayga caruurtayda geema haysto ilaahay ka cabsada ilaahay ku dhaarshay maanta waa kana xageeda wax yar oo lacag oo neesaan kala baxay maanta meeshaan cid la taaganahay bilaa calayk ilaahay ka cabsada naga soo gaara bilaa kana alaabtii jiifkii way ku jirtaa waa kaas cagaf soo galiyaan shacabku way dilaan way baabi'iyaan ciidanka dadka oo dilaa waa kaas waxas nin oo waxa waa tali ku xigeenka degmada Yaaqshiid waaye waa kaas cagaf dhulka ku jirto meeshaasna waxa waaye alaabtii oo guriga aan wali laga bixinin saad صدق قلنا صدق غلط ها صدق قلنا صدق غلط ها sar waa ku salaami dhulka naag waaye ciidan badan ay keentay inay dhacday rabtaa dhagaxiina aad ku soo shubtay hore in laga dhisay rabtaa dhulka